horta waxaa fiican ereyga ah jawaari baa ilaaladiisii meesha la galay horta meesha horta in laga saaro waa erey aada u fiican qofka cadaalad darrana inuu cadaalad darro ku taageero ma fiicna anigu haddaan shalay madaxweyne xasan sheekh laha waxaanu ku qaldan yahay kuma haysanin kursina kuma haysan qabyaaladna kuma haysan qodob dastuuri oo la jebinayaan ku haysti oo aan lahaa hal madaxweyne sax maantana tiibaa khaladku ka taagan yahay jawaarina ilaaladiisa 18 wiil ama 22 wiil ilaaladiisa weligii raaci jirtay ayadii buu meesha la tegay meeshay fariisan jireen banaankaadii fariisteen guda uu xoog kula galay iyo xoog uu wax ku qabsadeen midna ma lahan gudahana baarlamaanka waxa fadhiyay ciidamadii booliisku amniga gaarka u sugayay ahaayeen oo qof walba hadee kaamirooyinkii iyo ciddii ku jirtay waa caddahay marka dadka aaminsan jawaari baa xoog wax ku qabsaday dee jawaari hadduu xoog wax ku qabsanayo gurigii madaxtooyuhu 100 kilomitr u jirayo muu qabsado oo inqilaabo hadduu wax ku qabsanayo marka hadalka dhalanteedka oo dadka laga dhaabicinayo horta waa in laga daayaa mas-uuliyadda waa in la saaraa wax allaale wixii generaal halkaas soo diday iyo wixii technical la keenay iyo wixii hub la keenay oo habeennimo lagu soo daabulay oo in cadowga lagu difaaco loogu talagalay horta kuwaa su-aalaha weydiiya laakiin anigu nin siyaasi aan ahay nin mas-uulan baan ahay inaan cadaalad darro qof ku taageero marna iga filin waxyaabaha la boonboonayo jawaari waa baarlamaan qabsaday iyo ka qabsay waxba kama jiraan ilaa markii baabuurta laga reebay waa uusan sharci u lahayn in guddoomiyihii baarlamaanka oo ninkii labaada meel dariiqa baabuurtii technica inta lagu gooyey la yidhi muxuu aha lama gudbaysid baabuurtaada ilaaladiisii hadday gelbiyeen oo ay kaxeeyeen ma waxaa loo fasiranayaa muxuu ahaa inqilaab buu sameeyey iyo baarlamaan buu qabsaday ilaaladiisii baa kaxaysay banaankeeda u dhoobnaayeen uga hareen meeshay shaaha ku cabi jireen bay fadhiyeen cid kastana markhaati bay ka tahay kuwa boomboonaya markhaati bay ka yihiin marka nimanka fashilmay oo maaragtay janamada ah oo been abuurka samaynaya taa su-aasha ina weydaa fiican oo ciidamada soo daabulay waana ayaan darro arrintaas maaragtay in wadada saxda laga leexdo cadaalad darro in loo heliyo ma fiicno waa in markasta sharciga iyo cadaaladda la raacaa in weydo waa lagu soo dhexgelayaa maana waxbaa lagu yeerin waxbaa lagu sheegaya waxa mas-uuliyiintii dalka u sarrisa garan weyday oo wanaagga garan weyday oo dhexdhexaadin garan weyday dee nin shisheeye hadduu inta noo yimaado yidhaahdo wax oo na kala qabto na kala dhex istaago dee hadeer qof walba muwaadina waa soo dhaweynayaa ma waxaad sugaysaan inta shacabka soomaaliyeed dushooda xabadu ka dhaxayso laba gurub loo kala baxayo dhibaata dhacayso qub iyo qayal isku haysa miyaa qofka sugayaa waddankan soomaaliya hadday isu tanaasuli weyday soomaaliya hadday horumar gaari weyday soomaaliya hadday isku haysato waxaan bakeeribiya waxaan dhamaan ay isku haysato oo mas-uuliyiintii dalka ugu sarreysa waxaa fiirsanayaan oo hormood ka yihiin adeer in dalka ummado kalena dhexdhexaadiyaan oo noo yimaadaan oo khaladkana tilmaamo oo yidhahdaan waddada ha lagu socdo horta taas waa mid qof walba soo dhaweynayo waana arrin wanaagsan midda labaad dee beesha caalamka idaaba gacanta waddankan ku haysa ciidamadoodii baa jooga markii waxaa keliya mitaal ahaan mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa taliyaashii ciidamada waxaa fadeexad ku ah oo ilhaano ku ah oo ayagu ay isku sameeyeen waxaad aragtay oo qof walba maanta goobjo ahaa oo ciidan iyo technico halkaa lagu soo abaabulay oo wixii dabaabaad halkaa la keenay qof walba indhihiisu shan yihiin oo wixii ciidan halkaa lasoo dhoobay oo taliyaashii ciidamadu meelihii inta kasoo kaceen ay soo iridda baarlamaanka soo dhoobteen oo garan waayeen mas-uuliyiintii dalka ugu sarreysay ay garan waayeen war bal intii wax meesha ka dhici lahaayeen dadkan hala kala diro oo ciidamadan meesha ha laga qaado oo muxuha technicada meesha ha laga qaado meelsa lagu jaray ay garan kari waayeen nin generaal ah oo amisom ciidanka madaxda ka intuu gartay soo duulay oo kala diray oo janamadiina kala diray guddoomiyihina kasoo saaray meeshii amarkii meeshaan amnigeeda la sugahaya nimankii janamada sheeganaya inay yidhi nin walba shaqaadii qabso ilhaano intaa la eg miyay sugahayaan ka badan miyay sugahayaan oo ku dhacday waxay garan waayeen oo ninkii muwaadinka dalka lahaa garan waayey oo mas-uulkii dalka ugu sarreeyay garan kari waayey oo muxuu ahaa nin kastoo mas-uulu garan kari waayey oo janamadii garan waayeen oo nin generaal janabiyu garto idin war dalkiina u naxa dadkiinana u naxa carruurtiinana u naxa waxaad isku haysataan oo aad xallin weydaan aad isku fiirsa xallin weydeen mid ajanabiyu xalliyey sharaf darrada iyo karaamad xumada kale u harta maxay tahay marka dadku horta waa inay wax badan horta ogaadaan waxa weeye mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa noocu doono ha ahaado
sharciga la idinku doortay oo dastuurka ilaaliya mas-uuliyaddii dadka la idiin dhiibtay oo ammaanadaahid ilaaliya shacabkaa soomaaliyeed ka daaya dhibaatada iyo burburka iyo muxuu ahaa cagajuglaynta iyo waxa lagu dagaalamayo iyo hanjabaadaha hala joojiyo xildhibaanada iyo cid kasta waxaan leeyahay mas-uuliyad baa dalkaa idinka saaran la idinma dooran xildhibaano la idinma soo dooran fawdo iyo qalalaase iyo maaragtay nin jeclaysi la idinma soo dirin waxaa la idin soo diray dalkan inaad ilaalisaan dastuurkiisa iyo shuruucda aad u dhaarateen inaad ilaalisaan xildhibaan walba 275 xildhibaan nin walba wuxuu ka yimid sababtu ku yimid waa ogyahay anigu ma sii fasirahayo nin walba waa ogyahay wuxuu ku soo galay meesha waa ogyahay laakiin waxbaan burburinayaa dastuur baan ku tumanhayaa nin jeclaysaan raacayaa nin baan dhibcaanayaa la idinka akhrisan mahayo kaliya waxaad ilaalisaan mas-uulka dalka ugu sarreeya ha ahaado kan ugu sarreeya xildhibaan ha ahaado wasiir ha ahaado taliye ciidan ha ahaado qodobka dastuuriga ah oo fawdada lagu wado oo muxuu ahaa la diidayo muxuu ahaa gacantaag loo cararhayo ha la ilaaliyo kuwa sheeganaya maaragtay mooshin baan wadnaayo jawaari baan tuuraynaa le war tuurisi ma xuma haddaad 200 haysataan haddaad 270 haysataan nidaam soo maray nidaamkii dastuuriga ahaa oo sanduuq ahaa oo dastuuriga oo qodobka 65 ah oo jawaari haddii uu baxayana uu ku baxayo haddii la dooranayo lagu dooranayo oo aad shala ku doorateen shala gacantaa kumaydan dooran buuq iyo qayle iyo sawaxan kumaydan dooran nidaam baad ku doorateen nidaamkii aad ku doorateen buu maanta taagan yahay marsiya asagii wuxuu leeyahay war sharciga ilaalino waa ugu mahad celinayaa xildhibaanadii shalay doortay hadday maanta iga soo horjeensadeen fawdo inta la daayo dastuurkii la igu doortay waa qoran yahay ha la igu doorto sanduuqii qarsoodiga ahaa waa idin mahad celinayaa buu leeyahay haddaad dib ii soo doordeen waa idin mahad celinayaa buu leeyahay haddaad xilka iga qaadeen waa idin mahad celinayaa buu leeyahay laakiin dalkan fawdo waa kasoo tegay iyo gacantaag iyo qaylo iyo buuq iyo waa dhacay ma suuroobayso fawdo haddaad dalka ku bilowdaan idinkoo xildhibaanada ah iyo xukuumaddiina iswata haddaad ku bilowdaan tiimka jawaarina fawday bilaabayaan oo waxay oranayaan madaxweynihii waa ridni ra-iisul wasaarihii waa ridni ma fawda marka lagu jirhayaa marka intaa waxaan hadda u sharaxayaa shacabka soomaaliyeed inay arkaan oo been aan laga dhaadhicin oo wax khiyaaliya aan raacin dalkaana nin jeclaysi ha laga saaro hebel baan u dabardahayaa ha la iga saaro ha laga saaro danaysta ha laga saaro dan gaara ha laga saaro dalkan uma baahna iyo shacabkan soomaaliya dhibaato dambe iyo burbur dambe iyo isqabqabsi uma baahna dalkan meel fog baa laga keenay shacabkaanu meel fog buu isaga soo kala noqdo isaga yimid yaan dalkan dhibaato lagu celinin yaan dalkan burbur loo horseedin fawdo hadday noqoto oo baarlamaankii fawdo bilaabo oo xukuumaddii fawdo bilowda oo madaxweynihii sharci ilaaliyaha qaranku fiirsanayo uusan oranayn war sharciga hal uusan oranayn haddii nidaamkaas hadduu burbura maxaa lagu joogayaa dalka waxa weeye sharciga ha la ilaaliyo anigu waxaan taaganahay nidaamka ha la ilaaliyo dalka fawdada ha laga daayo madaxweynuhu ha soo dhex galo sharciga muxuu ahaa soo dhex galo asaga sharci ilaaliyaha ha soo dhex galo fawdada iyo maaragtay qabooda dalka ha laga daayo dadka shacabka ha loo turo anigu intaan oranaya intaas waanada aan oranayaa ninna gaar anigu u taageeri maayo ninna muxuu ahaa weji ku caabudi maayo ninna si gaara muxuu ahaa muxuu ahaa garabka ma saaranayo sharcigaas in la ilaaliyaan qabayo dalkan fawdo